magaalooyin badan oo reer galbeedka ah waxaa ka nolol samaystay Soomaali badan iyada oo qaar badan oo gudaha dalkii ku noolna ay jidka ugu soo jiraan inay ka soo haajiraan dhulkii kuna soo biiraan kuwa horay wadamada reer galbeedka ugu noolaa. dalkii inkastoo ay ku nool yihiin dad aqoon leh oo marxaladda adag u dhabar adeegay, haddana waxaa jira in tiradaasi aanay dabooli karin baahida jirta oo aad u badan. qurba joogta Soomaalida ah ee dibadaha ku nool oo lagu tuhmayo aqoon iyo dhaqaalaba ayaa inta gudaha joogta ay ku doodayaan in aqoontaas loo baahan yahay in dalkii dib loogu soo celiyo maadaama baahi weyn loo qabo. su'aal iman karta ayaa waxa ay tahay tira intee leeg oo qurba jooggaas ah ayaa doonaya inay dalkii iminka dib ugu noqdaan. maraan weydiiyey qaar ka mid ah qurba joogga Soomaalida in ay waayahan dib u noqonayaan iyo in kale ayaa jawaabtu ay noqotay mid walwal igu abuurta. maya sababta aan u idhi ma noqonayo wax ka mid ah sabab badan oo aan saacidayn in dalka dib loogu noqdo ay ka mid yihiin kaabayaashii bulshada oo aan weli jirin, siyaasadda dalka oo aan weli aan degin. waxtarka aan dalka aan isleeyahay waad u qaban kartaa marka aan noqdo, haddaan israa noqo iyo marka iminka aan joogo waxaan aaminsanahay oo aan ogahay inaan hadda u qaban karo wax ka fiican. waddankeena dhibaatooyin badan baa ka taagan, dhibaatooyinkaasina waxay u baahan yihiin sidii loo xalin lahaa in falowgeed la qabto, inaguna qayb weyn sidii aynu uga qaadan lahayn. inagu horta inaynu meel is dhigno, inagu inaynu dadaalno, inagu inaynu wax soo baranno, inagu inaynu aynu shaqaysano. waxaa muhiim ah aynu halkan haddii dadkeena qurbaha jooga ama diaspora ka shaqayno waxbarashada, dhaqaalaha, maxaan ku raadin dibadhiska dalka, dabeetana inagoo si fiican waxaan maamul urursanay sidii dadkii hore u guuri jireen reer guuraaga ahaa loo sii sahamiyo la tago. laakiin haddaynu iska butuluq samayno dadkii oo inoo baahan inaga waqtigan xaadirka ah dhibteeda gaar ahaaneed bay leedahay. horta aniga iyo reerkayga inta igu kooban markaan aan meel iska dhigo ayaan dadkaygiina wax u qaban karaa. antaasaan qabaa. mujtamaca degan, jaaliyadaha degan dibadda waanu isqabanaa, waxbaan ururinaa, waxaan isku daynaa inaanu dhisno deegaamadii iyo wixii loo baahnaa kaabayaashii nolosheena dib u soo celino. cabdirashiid xoogsade oo degan magaalada London ee waddanka Ingiriiska ayaa ka mid ah dadka qurba joogga ah oo muddo badan aan dib dalkii ugu noqon. muddo 28 sano dhan ayaa uu soo moogaa magaalada Hargeysa oo ahayd goobtii uu ku dhashay. bishii Diseembar ee sanadkii 2008 ayaa uu Cabdirashiid markii ugu horreysay muddo 28 sano ah dib ugu noqday dalkii isagoo oo safar shaqo oo gaabanna ku aaday. cabdirashiid oo intii aanu dalka ku soo noqon aaminsanaa sida dad badan oo qurba joog oo yaraantoodii ka soo haajiray dalkii ay qabaan mid ka duwan xaqiiqada nololeed ee dalka taala. intaan dalka tagin fikirkan ka haystay dhulka waxa weeye mid ka bartay TV-ga wax laga soo saaro iyo wixii maaragtay jaradaha Ingiriiska ka soo baxa. anigoo dhulka ka maqan 28 sano way yaraadkeen waqti inaan positive image ka haysto dhulka. marka intaan dhulka ku noqon waxaan ka baqanay waqti inaan systemka garan waayo iyo takale ugu jirtana waxa weeye inaan waqti dadkiisa maanta si fiican u fahmi waayo anigoo afkayga waqti aan soo fiicnayn iyo aan ogahay dhulka waqti inay waxyaalo badan ka maqan tahay. taasna waxay maantay u abuurtay si inaan ka baqno waqti situationka marka noqonayo. cabdirashiid oo walwalkaas qaba ayaa ku dhiiraday in uu dalkii dib ugu noqdo isaga oo ka mid ahaa Dalmar Foundation oo mashruuc tababar ka bixinayay magaaladaasi uu ku dhashay ee Hargeysa, isaguna uu waqtigiisa ugu deeqay si uu dadkiisa ugu gudbiyo aqoontiisa. wallahi maantay diyaaraddu maanta soo daadageysay habeen waxay subax hore ahayd waqti habeenkii aan jidka ku soo jirnay markaan habeenka ma seexan waqti waxa ugu jiray excitement
maaragtay dhulkii lagu laabanayay markii soo degaysa horta markii hore maaragtay waxaa usoo kordhay maaragtay qiiro iyo happiness markii soo degtay diyaaraddu aan kasoo dhaadhacay aad aan ugu farxay wallahi jawga maaragtay oo maaragtay cadceeddii soo jeedo hawadii fiican iyo dadkii oo dhan maaragtay soo dhaweynayay aad baan ugu farxay wixii baqdin iyo uncertainty iyo waxaasoo dhan markaas ay ugu dambeysay inkastoo uu safarkii cabdirashiid uu ku tegay dalkii maalmo kooban uu ahaa haddana waxaa jira qaar sidiisa oo kale ku noolaa qurbaha oo iyagu go'aansaday inay soo afjaraan ku noolaanshahoodii dibadda oo dalkii si rasmi ah uga nolol samaystay dadka waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee beeraha somalilan aadan axmed cilmi dhoolyare oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta qurbaha ka soo noqotay ee go'aansaday in ay dalkii dib uga nolol bilaabaan iyo agaasimaha guud ee shirkadda isgaarsiinta telesom cabdikariim maxamed iid oo isagu ka mid ah ganacsatada hantidooda dalka dib u soo gelisay intii aan ku sugnayn magaalada hargeysa ee magaalo madaxda u ah somalilan ayaan waxaan soo booqannay xafiisyada wasiir aadan dhoolyare oo isagu u muuqday nin ku faraxsanaa go'aanka uu gaaray inuu dalkii dib ugu soo noqdo kana qayb qaato dibudhiska iyo horumarinta dalka iyo guddoomiyaha telesom cabdikariin iid oo isagu u muuqday qof ka raystay noloshii qurbaha hantidiisa iyo aqoontiisana inuu dalka dib u soo geliyo ku faraxsanaa aan soo noqonin waxaan deganaa waddanka Norway magaalada Oslo waxaan ku noolaa dalka Canada magaalada Toronto run ahaantii Norway waxay ka tirsan tahay dalalka la isku yiraahdo Scandinavian-ka waa dal aad u wanaagsan waxa weeyaan dal noloshiisa aad u fiican tahay de kolley waddankii aad maaragtay ku baraadho ee wax wanaagsan ka heshaaba adiga ubadkaaga iyo Soomaalida kale ee ku noolba u wanaagsan waa dal wanaagsan waa dal cimiladiisu qabowdahay oo wadamada ugu qabow adduunka ka mid ah dabeecadihiisu kolley ka wada warrami kara maayo laakiinse waxa weeyaan marka la isku duuduubo waa dal aad iyo aad u qiimo badan noloshada Canada markii horena waxay ahayd arday oo dugsi sare ilaa iyo college aan ku galay markii dambana shaqaale labaduba waxa ay qireen in nolol kasta oo aad ku haystid qurbaha aanay jirin mid loo dhigaa tan aad ku heli kartid dalkaaga hooyo waa dal fiican Norway laakiin haddana waxa ka sii fiican de meeshaad u dhalatay iyadoo Norway ay tahay dalkaygii labaad oo carruurtayda maanta ay yihiin dad Norwegian ah oo ku barbaaray oo ku dhashay oo de ay laxam wadam mesela ba ma dhigiyo jiirahanba ay yihiin dad Norway jooga oo laakiinse mahmaahdaasi sidii cadeynaysa de meeshaadoo aad ku hesho nabad iyo wanaag meel ka fiican ma jirto 94kii bishii July ay ahayd markii ugu horeysay halkan aan soo guuray runtii dhalinyaraan asxaab ahayn iyo dad badani waxa ay igu dhiirigeliyeen inaan tagin oo mustaqbalku uu runtii Canada uu ku dhisan yahay oo wax badan runtii aan isku leeyahay qancinayay war halkan dhalashadii waad qaadatay iskuulkii waad kaga baxday waxaan ku dhahdaa wali nin yar baad tahay mustaqbalkii oo dhan halkan uu joogaa iska joog dalka 1988 markii waddankan uu dagaal ka dhacay civil war-ku ee laga qaxay dadkoo dhan way ka qaxeen Ethiopia la tagay أنا waxaan kamid ahaa dadka intay fursad u heleen dhoofay laakiinse aan hadana ka caqaaday wadanka 9kii iyadoo qaxootiga lagu jiro waan imid 29kii waan imid 94kii waan imid 97kii waan imid 2kii waan imid yani wax weeyaan haddaan sanad ka maqnaado sanadka dambe waa imanay taasi waxay ku tusaysaa in ay igu abuuray in aan mar wal oo kastaba jeclaa wadanka inaan ku soo noqdo anigoo xilka hayn iyo anoo xilka hayaba waxa ugu weynaa runtii aan u soo noqday waxay ahayd in aan islahaa waxbaad nolosha dadkaaga iyo dalkaaga aad ka bedeli kartaa taas ahayd motifka ugu weynaa runtii aan ku soo noqday inkastoo xiisaha uu dalkii u qabay uu ahaa mid aad u ballaaran haddana cabdikariin
kuma aanu soo hagaagin xilli qurux badan oo soo noqodkiisii waxa uu ku soo beegmay waqti qof xiise uu keenay aanu ku farxin 94 markaan imid waqti ugu horeysay waxay ahayd dagaalkii halkan 94 ka qarxay bishii November 15keedii taas ayaan isku qabtay markuu dagaalkii magaalada haddana dib uga qarxay miyaad sii joogtaa mise dib baad u noqotaa runtii go'aan adag bay ahayd waad garan kartaa meel isku dilayo iyo oo aan nabad jirin in laga shaqeysto ama lagu noolaado inay aad iyo aad u adag tahay laakiin ilaahay mahadiis runtii waxaan qaraarsaday oo aan go'aansaday inaanan dib u noqosho dambe aanan samaynin inkasta oo muddo 3 bilood aan markaas 96kii aan dib ugu noqday Canada haddana 96ka aakhirkiisii ayaan dib u soo guuray oo aan halkan ku soo noqday Hargeysa markaasaan bilaabay inaan dib dhis la sameeyo ayar hargeysa korriimadeedu waxa uu yahay mid si xawli ah ku socda haddii aad magaalada sanad ka maqnaatid ama aad ahayd qof horay u deganaa oo dib ugu soo noqdayna ma aha meel aad ugu soo noqonaysid sidii aad ku ogeyd dhinaca nabadgelyadana waxa ay in badan ka fiican tahay magaalooyin fara badan oo reer galbeedka ah iyada oo aad xilligaa doontid si aadan cabsi lahayn ugu dhex socon kartid waxay indhaha igu qabanayeen lacaga lagu wada gaari gacanno oo aanay hunguri ka gelayn kuwo badan oo sabool ah oo aan haysan quudkii maalintaas magaaladana ka dawarsada inkastoo ay magaaladu xasiloon tahay haddana waxaa ka muuqda arad dhinaca adeega bulshada ah oo muuqaalkii magaalada wax u dhimay taasoo wasiir aadan ku macneeyey in xukuumadda uu ka tirsan yahay aanay keligeed awood u lahayn inay wax ka qabato waa laga yaabaa dadku marka ay ka yimaadaan dibadda inay dareemaan infrastructure-ka dalka oo burbursan xagga laamiyada ha noqoto biyaha ha noqoto nolosha asaasiga ah ha noqotee taas wayna ognaho waxa weeyaan waxyaabaha aynaan awoodi karahayn maadaama dalka aanu dhaqaalo lahayn ee u baahan caawimo dabadeed in la helo si infrastructure-ka wax looga qabto laakiin in guri la dhiso iyo in maxay ahaytoy meel ay dad ka shaqeeyaan ama warshada noqoto ama shirkada noqotay la sameeyo group isu tagay way sameyn karaan laakiin infrastructure-ka kale ee ballaaran ee ah nolosha asaasiga ah shacabku waxba kama qaban karaan xukuumadda maanta jirtaana waxba kama qaban karto dhaqaale darro awgeed dalkana waa dal burburay waa dal u baahan wax wal oo kastaba dhaqaale u baahan yahay dhaqaale lagu dhiso dhismayaashu u baahan yahay infrastructure lagu dhiso u baahan yahay dadka maskaxdooda la dhiso u baahan yahay waxa weeyaan inta badan dadku wuxuu baahan qaanuun ama waqtigii la soo galay dalka in ay burbureen daaro ama dhismayaashu maaha waxa weeyaan waxa burburay dadka laftooda jir ahaan iyo maskax ahaanba way burbureen marka waxa loo baahan yahay daarta waa la dhisi karaa laakiin waxa ka dhib badan dadka sida loo dhiso qofka maskaxdiisa sida loo soo celiyo sida uu maxay ahaytoy dib caadi ugu noqonayo kii dagaal galay kii madfac ku dul qarxay kii dadkiisu dhinteen morally iyo maxay ahaytoy physically iyo si wal oo kastaba dadku waxbay u noqdeen